war aniga qaxootigaygaas un baad isiinaysaayo ka un baan ku joogi karaa mise kuma joogi karo waa kaa socdaa buu kayidhi ma waad ku joogi kartaa buu kayidhi maan ku shaqaysan karaa buu yidhi haa waad ku shaqaysan kartaa buu yidhi bas buu yidhi anuu waxaan warqado faransiis kaa rabo ma jirto iyo waxaan faransiis ahay waxaan ahay nin Soomaaliya oo reer Djibouti ah marka aabbo wuxuu rabay Allah naxariiste wuxuu aaminsanaa Soomaali weyn buu aaminsanaa ma aaminsaneen gobolkan Somaliland Puntland Jubaland waxa soo dhan uu ka soo horjeeday qabyaaladu ka soo horjeeday aad buu nici jiray marba xasuusanaya ayeeyday inuu ka yiri ma tag baa igu qabat yani qabyaalada ma tag baa igu qabat talma yani ha aad buu nici jiray because wuxuu arkayday sababtii keentay burburka Soomaaliya oo imika mashaakil dhibaatooyinkan keentay weeyaan Soomaaliya markii ay dadkeedu mid ka ahaayeen oo midaysnaayeen waa la jabin waayay laakiin waxaa la jabiyay markii ay Soomaalidu isticmaashay qabiilka sidaasi waxaa yidhi oo lagu xasuustaa naxariistii janno Allah siiye wadanigii Soomaaliyeed Dr. Cumar Axmed Malow oo ku caan baxay Dr. Cumar Cismaan Raabi Dr. Cumar Cismaan Raabi waxa uu ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo halgamaa ah oo had iyo goorba u taagnaa midnimada Soomaaliyeed wuxuu ahaa qoraa ummadda wacyi geliya barbaariyo iyo ummadda bara sooyaalkeeda taariikheed isla markaana uga diga oo ka wacyi geliya khataraha ku soo fool leh ummadda mustaqbalka dhow barnaamijkan oo ka koobnaan doona dhowr qaybood waxaynu ku eegi doonaa haddii Alla idmo taariikhdii iyo waayihii nololeed ee Dr. Cumar Cismaan Raabi waxaana ku waraysanay Saynab Maxamuud Wacays oo ah marwadii ama xaaskii Dr. Cumar Cismaan Raabi iyo Ayaan oo ah gabadh uu dhalay Dr. Raabi oo inooga warrami doona waayahoodii nolosha dhacdooyinkii ay la kulmeen iyo xogo badan oo ku saabsan taariikhdii Dr. Raabi ugu horeyn haddaba waa kuma Dr. Raabi bismillahir rahmaanir rahiim waxaan oran lahaa anigu Dr. Raabi wuxuu ahaa nin wadaniya ayuu ahaa oo ummadiisana jecel ilaahiisana jecel diintiisana jecel nin aan weligii iyo allihii been sheegin buu ahaa nin aqoon-yahan uu ahaa nin Soomaaliya inay horumarta rabay buu ahaa waxa uu nagu guubaabiyay uu jeclaa inuu noo sheegana waxay ahayd inaan diinta ilaahay ina bixinaysa ayuu naga yidhi qof kasta oo Soomaaliya waxa maanta uu samayn kari lahaa waxa weeyaan inuu tawxiidka qaato oo sidii carabtaba ay u badbaadisay diintu iyo inoo badbaadinaysaa sababta oo amiidho weyn baan kala galnay marka waa inaynu hadaynu dad Soomaaliya nahay waad mahadsan tahay ayaan haddaan nafsiisa su'aal ku weydiiyo inkastoo aabaha uu ahaa haddana maxaad ka bixin kartaa waa kuma Dr. Raabi jazakallahu khayran anigu aabbo طبعا wuxuu ahaa qof aad u wanaagsan nolosheediina maan arag qof sidiisa ilaa imika qof sidiisa ah runtii guriga dibadda dad kasta yani sidoo la dhaqmeeyay si buu la wada dhaqmeeyay yani daacad buu ahaa laakiin tawgu weyn yani waxaan kala haray wixii saameysay waxay ahayd inuu aaminsanaa hadaf buu lahaa wuxuu yiri insaanku inuu lahaada hadafka ugu weyn allahan karayona waxa weeyaan laa ilaaha illa allah saasuu yiri anigu saayiri marka taasa ugu bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa aniga Saynab Maxamuud Wacays baa la yiraahdaa marka waxaan ahay marwadii Cumar Cismaan Raabi amba Cumar Axmed Malow hadba sidaad u taqaaniinba waxaan u malaynayaa hadduu Kanada joogo Soomaalidu iyo hadday joogaan Djibouti iyo hadday joogaan Carabaha iyo hadday joogaan Faransaba Cumar si bay u wada yaqaanaan Cumar Axmed Malow waa aabihiisii dhalay weeyaan
doctor Cumar Cusmaan Raabana waa aabihiisii soo koriyay ee hooyadii guursaday markuu aabihii dhintay isagoo 3 jir soo qaatay agoonnimo ku soo koray hooyadii baa soo korsatay 3 jir buu ahaa Jabuuti laga qoray iskuulka malcaamadda Jabuuti haddana iskuulka ka galay odaygaas waa odaygii warqadaha u sameeyay buu ahaa marka maxay ahayd alxamdulillah rabbil caalamiin way badan tahay sidoo iskuulka ku galay iyo inuu boormo ku dhashay waa loo diiday xitaa imtixaanadii inuu galo marka detailka waan ku hayaa oo markale aad heli doontaa laakiin haddii la yiraahdo Cumar muxuu ahaa anigu waxaan aaminsanahay siday nimanka saaxiibadii amba ay ummadda oo dhan ba aaminsan tahay inuu ahaa nin ilaahay nin ummadiisa jecel buu ahaa nin wadani uu ahaa nin Soomaali uu ahaa taariikhdiisii haddaan dib u raacno wuxuu ahaa maxay ahayd marxist buu ahaa oo wuxuu doonayay ummadda si uu u wada simo waxa qurahaatay marxistku dadku waa isku wada shaqo mid ay qaataan mushahar shuuciyiintii yuu yidhi markaa yuu galay Marx iyo waxaasuu galay markaasuu yidhi taa unbaa ka saari karta oo ummaddan the same level laga wada dhigi karaa ayuu aaminsanaa markii la xidhay weli marxiskaas uu aaminsanaa iyo inuu lawyer noqdo lawyerkaasoo dee si uu gumaysiga uga xoreeyo ummadda markii dambe la xidhay lawyernimadii wuxuu ku joojiyey dee gobonnimadoonkii yaa lagu xidhay markaa Cali Caarif bay rabay Jabuuti laga qabtay markaa Jabuuti oo gabood buu ku xidhnaa markaa Cali Caarif baa yidhi dil baan ku xukumayaa dil markii lagu xukumay waxa la soo taagay Balaas Rambo meel balaas weyn oo Jabuuti ku yaala markaas loo galiyo la yidhi maanta waa la dilayaa Cumar reer Jabuuti oo dhan way ogyihiin markaas wuxuu yidhi ninkii Cali Caarif hala dilo waa soo wada banaan baxay bartaas la joogay waa loo xidhay qoorta loogu riday 5 minute ka hadhay de wali Jabuuti Faransiiskii baa haystay yaa madaxweynihii De Gaulle yaa la weydiiyay oo loo diray telex markaas ninkaas la dilayaa baa la yidhi ee soo saxeex nasiibkiisa ilaa qofkii ilaahay dilo oo baa dhintay madaxweynihii De Gaulle baa saa intuu eegay buu yidhi warqadii yidhi maxaa inanka yar lagu dilayaa markaas la yidhi waa ninka fidnada wada waa ninka gobonnimadoonka waa ninka Faransiiska dhulka ka kicinaya marka Cali Caarif inuu dilo rabay marka waa in la dilo aniga buu yidhi ninkaas De Gaulle markaan anigu gobonnimada idin doonayay ingiriiska tagay idinka kicinayay Jarmalka iyo Mareykanka Churchill dilay buu yidhi maxaad u diis waa inan keenay war noo soo qaado keena buu ma saxaxayee sidii baa markaa lagaga joojiyay 5 minute u hadhay oo laakiin da loo cabaysto lagu dilay Balaas Rambo oo hooyadiina markaa dhacday deelaado ilmahaagii lagu halkaas lagu dilaya ay markaa hooyadiina dhacday dad way socdeen markaas dadkii oo dhan wada yaabeen Cumar baa la dilay maanta kaale la yidhi ba haddana jawaan lagu riday jawaankii baa diyaaradda lagu qaaday ilmaade France baa lagu tuuray France halkan De Gaulle baa yidhi hal weydiiyo laba su'aalood miyaad shaqaysan because jeelka waa lagu shaqaystaa buu yidhi maad shaqaysan mise waxbaad baran baa la yidhi ما يدق مركي لقيه وحكر خلاص ما هو حبس داين يورجن مركي فرنسا لقيه حبس داين بكجرية مركز سوري مياد واحد دجان مسوات شقيسان وحول ما يحبان دجان يابان دبر أنو مش شقيسان عاي ده مركز اللي يجي من جريتشال كله كحين جامعة اللي يجيني لا بس كله يسوي علينا يبيوت مركز سو متريسكيسا وحن قاتي بيود اللوجا لوجي مركان قاتي بعد دبودي قانون ها يعني محط كدي بس دبودي مركي دم فلسفة دو بعدي بود مركان كقاتي بود ماستر يعني كجوجي بود وحن كيدي بود نحيد معلم كيجي مدوني فلسفة دان قاليا فلسفة دي بان قالي بود فلسفة دي مركان قالي بودي إن دكتورة جيجي قادني يجي هدي ياد نكال أفضل يجي صار ماشي بود سفير كي وجوجي فرانسيسكا سوماليا وها أفضوبي نمن جبهة أها أو صاحبتي أها أو لورنجري نك محمد عثمان هو فن الله يراهضه ومركا حمر جوجي أي أفضوبي نك يناكتيسي مركا أفضوبين بيراهدين هذا نك سود يسدنا لبض عني أنا قحدا إنه كلام هذا عمر خير الله يراهضه وسقنا يالحدنا
labadoo Faransi ku xidhan yihiin soo daayo haddaad soo daysid annaguna de waa sii daynaynaa ayuu ka yidhi ninkaasi hadda waa la soo dayn waayey diyaaraddana way gubatay dee adiga naagtaaduna waa dhimateen marka noloshaadu waxay ku jirtaa dowladdaada buu ka yidhi Faransiiska dee markaasay Soomaaliya dee Maxamed Siyaad Barrena dee la isku wada yaacay baa la yidhi Maxamed Siyaad Barre xukumay markaasaa diyaaraddii kolna cadan ha fadhiisato kolna maxay fadhiisato kolba meel la yidhi markii ugu dambeyntii bay cada fadhiisteen intaasoo dahabana hal la keeno ayuu ka yidhi ninkaasi aduu la keen waa la kala wareejistay cadan bay ku kala wareejisteen wuu ogolaaday ha markaasuu siiyey markaasuu yidhi ninkan wuuba na dhibay kolna carruurtaydii loo afduubayo ee basaska la afduubayo kolna maxay isagii waa sii daynay buu yidhi wuxuu markaa la heshiiyey Maxamed Siyaad Barre Maxamed Siyaad Barre ka yidhi waa la kala wareejiyay markaa khalaas waa la soo celiyay Soomaaliya keen lama geey Soomaaliya la keen ha Soomaaliya laantii buur baa la keenay halkaasay joogeen may way fadhiyeen dowladda wax siin jirtay oo ay xagaasay fadhiyeen maca laanta buur marka dambe la geenayaa laanta buur waxay oranayaan markuu Faransiisku maxay hayday uu yiri Ilaahay taleetiisatay calankii baan siinaya Maxamed Siyaad Barrow nimanka iga qabow ka yidhi FLCS-ka nimanka gobonimo doonka iga xidhxidh buu yidhi marka nimankii gobonimo doonka oo dhan buu yidhi Maxamed Siyaad Barre hay waan xidhxidhaya ilaa kugu soo darayaa buu ka yidhi oo uu khayme markii dambana wuxuu yidhi Jabuuti gooni bay isku taagtay guuleed buu dhiibtay Siyaad Barre wuxuu rabay inay Jabuuti ku soo baxo markii dambe farsu dhexda ka qaniin Maxamed Siyaad Barre markaasuu sii daayay ordo dhulkii taga deebul ad xoreyseen oo idaafa buu ka yidhi markaa dee waxay rabeen markaa inay dilaan Faransiiska Cumar nasiibkiisa maalintaa iyo Maxamed Ismaan Farwe ka maqnaayeen may tegin loo yacade laakiin nimankii kale tagay Janaali iyo waa la dilay oo Faransiiskii baa dilay oo bartii baa lagu dilo may galin ma aragtay geesiyaashaas Ilaahay naxariista jannaha siiyo ma aragtay markii dambe markuu galay Cumar wuxuu noqday maxay hayday uu galay ha markuu may markaa ha waxa joogay odaygii baa joogay Xasan Guuleed baa joogay ha Xasan Guuleed markaa waxba ma nacbayn ma aragtay laakiin uu soo dhaweey markaa wuxuu ka yidhi waxaad doonaysaa Cumar wuxuu ka yidhi anigu waxa ii dhinayd imtixaankaygii maan soo marin toor imtixaankaygii waa inaan soo maro buu ka yidhi may horta markuu Jabuuti joogay wuxuu yidhi uu shaqaystay xagee lagu dhiba macallin inaan noqdaan rabaa buu yidhi waxa loo dhiibay meesha maxay hayday macallimiinta iskuulka macallimiinta ayaa loo dhiibay ma aragtay marka macallimiintu soo saarayay uu barayay école normal waxay yiraahdaan marka macallimiintu soo saaray uu bari jiray isaguna at the same time wuxuu ka dhigi jiray haddana secondary-ga oo haddana macallinka ah halkana director buu ka ahaa markaas waxa dhacday in yar markuu joogay buu yiri anigu de waa inaan soo maro maxay hayday doctoragayga odaygii Xasan Guuleed baa yiri war adigoo shalay uu lagu soo qaaday Cumaro lagu soo damiintay yaa inaad haddana meeshii ku noqotid Cumaro way weyntahay marka nin jiskar distalida yaa haystay oo ka tagay odaygii maxay hayday digool ninkii madaxweynihii Faransiiska yidhi ninkaasi hadduu noo yimaado Guuleedo 24 saacadood baa siinayna mise 48 hours baa siinayna hadduu hal minute ku daaho waan dilaynaa saxiix Guuleed baa yidhi ma saxiixayo anigu Cumaro buu waa Jabuuti damaan Cumar baa ku kalifay Cumar baa wuxuu yidhi waa inaan soo qaato imtixaankaygii isniintan marayay buu ka yidhi waa baxay marka meesha waxa lagu leeyahay waa inuu dalka 48 hours ka baxo Faransiiska ma mugelin hadduu noo yimaado oo 4 saacad kaga soo bixi waayo imtixaankiisa intuu soo maro hadduu ka bixi waayo waan dilaynaa bay yiraahdeen wuxuu yidhi Cumaro tareenkii baad waay kartaa diyaaradii baad waay kartaa baskii baa kula daahi kara ma naftaadii baad ku ciyaari buu ka yidhi ninkana wuxuu iga saxeexayaa madaxweynahan jiskar la leeyahay hadday hal midhid ku daahdo inta aan siin 4 ka saac waan dilaynaa ee saxeex biga yidhi mar Guuleed maadaa dhimanayuu ka yidhi misaanaa dhimanay
صحيح أنا كودا صحيح بودي إلهي نحبك همودي markaasuu yiri umadaas markhaati ahaat uu saxay guulid uu soo doolay marka inankay gaar ma haysti liibaan oo de markaas saddex bilood meelaha waaya markaas warmad waaltay maxad naftaadu u halaagi baan kayd markaasuu meeybuudi qofku maalin uu budintaa maalin labaad ma jirto buudi haday maalinteedii tahay maan dhimanaya hadii kale ma jirto buudi maalintii dilka la igu xukumay ma dhintay buudi ma dhiman buudi soo ku digolii buu joojiyo soo dir maantana haday taydii tahay maan dhimanaya buudi wuxuu la hadlay marka nimankii juurigii uu la hadlay ee de imtixaanka ka qaaday wuxuu yiri xilligaas aan imanaya diyaaradeedu waa xilligaas soo baxaya xilligii buu maray waa la fadhiistay uu soo maray imtixaankiisii uu soo noqday uu ka soo gaaray xilligii horjeed ayuu ka soo baxay ha tareenkii diyaaradii markaas uu sheegay waliba hal intaas aleysay inta hadda igu dhaafto dil buu saxaxay madaxweynahayagii la dilo bukeed marka imikaba imtixaankayga waa inaan maro labadu soo muslimiye waliba caadi waxaa la Umar adigoo ahaa markisiist sida hadana diintaada ugu noqotaa laga yiri safarka laftiisa laba qof soo muslimtay ayo ha de kuwi imtixaanka ka qaaday markaas uu war adigu markaad Hegel iyo maxay qoraysay markay meesha caynka tahay jawaabtii ma heshay buu kayir maya buu yiri daanu lama garanayo adiguna ma heshay buu yiri maya de aanu hadaba kitaabka quraankan ka helayo diinteedii waan ku noqdo marka aanu aska muslima kii kale wuxuu anoo kala muslimaan midna wuxuu anoo waxa ku noqonaya Christianism kaygiyo waan ka joogsanay marxiska Umar de markaas la soo siiyay sidii buu ku soo noqday guuleed baad de alxamdulillah yiri ilaahay nabad ma ku keenay buu markaas uu ha jaal madaxweyne haday taydii toban dhiman lahaay haday taydii ay ma dhimanayo wanaga shahaadadiina sitade buu baasha inta soo sanoodo jaal ugu xidhna sidaan uga imanaya wuxuu ku xidhnaa 7 sano xoga ha ay ku xidhnaa waxbarashadiisu buu waday oo kullu la sii kaxayno kullu jaamacadda lagu celinayo jaalka yar saluudka soo doctora wad markaas uu ka soo baxay marka waxa loo dhiibay meeshan de macallimiinta ya ha ayuu sii waday oo loo dhiibay markaas ay haddana waxay iska hor yimaadeen guuleed xabashidii baa lacag siisay dadkii markaas ku nimankii wasiiradii oo dhan muumin bahdoolada guriga loo dhisday markaas bankii xabashidii baa ku faraqay lacag markaas war ma annagoo shal ugu soo halgameynay buu yiri dalka ayaan maanta la iibsanayna dalkaygii buu ka yiri waa ka guuleed u tagay marka guuleed uu jeclaa wasiiradii laalushka iyo ka hor yimid markaas uu yiri anigu ma qaadanayno inan markaa u shaqeynayso kaatoligada hay'ad madaxweynaha Jabuuti maxay xasan guuleed yaa tiri Umarow odayga baa ku jecel intan kala dhaw ku nacab yihiin ya Umarow eeyar dibso iska joogso ha iska joog markaas uu yiri maya ma joogayna buu yiri wax xaq darro weeyaan buu yiri anaga shalay xabashidii ilaa last minute-kii nadiidaysay xornimadayada inay maanta yiraahdaan waa walaalahayo ya alla iibsada buu yiri xabashida marka dhulka miyay maal gashanaysa marka waa dadkii maal gashanaysay oo de wasiiradana lacag ku faraqaysay way siinaysay oo waxay u furaysay supermarketyo marka inaan banka ka shaqeeya oo maxay hayday samarona ka yiri war lacagta ay wada qaadanayaan adiga Umar si baa lagu qaado waa adiga tag buu ka yiri alla iibsaday ani 180kayga kun baa igu filan buu ka yiri lacagtii Faransiiska ee Djibouti ahayd markaas markuu sidaa yiri buu subhanallah wuu aamusay markaas uu tagay madaxweynaha jaal madaxweyne buu yiri waa maxay waxaan buu yiri waxay sameeyeen marka urur ka hortagaya isaga diini maxay hayday oday Muuse Axmed Dirs la yiraahdo oo madaxweynenimo doonayo de ay imika dileen oo laakiin la curyaamiyay ma aragtay oo oday fiican oo wadani ahaa ma aragtay ururkii naagtan ina xayd odaygeegii Cabdalla Kaamil loo oran jiray prime minister ka ahaa iyo niman dibiteeyo badan ayaa de markaa ka hor yimid urur samaystay oo qaaday guuleedo uu xirxiray gabigoogiiba daraa la geeyay oo lagu riday hadan isagoo hadda ka soo baxay Soomaali kii wuxuu ka soo baxay Faransiiska haddana kii afweynu ka soo baxay Maxamed Siyaad Bar ee Faransiisku xilay yiri sanad buu isna ku riday markuu haddana Djibouti midna waa ka guuleed ku riday hadda markaas wuxuu yiri maniman waxaan war iska joog baan ka yiri waan la tagi war waxaad samaysaa baan ka yiri anu shalan jeel ka soo baxee anu ma gali kare
waxaad ka tiraahdaa walaalahayow anu aan la socdaa iska daa oo lugna baqa ugu joog lugna dadaba ugu joog baan ka yidhi anoo haddayna yaraha oo 19 jir ahaa maya buu yidhi anu weligayna maxaa hayda dhanama jiraa mihi amba waan ku jiraa amba kuma jiro buu yidhi marka waan idinku jiraa ina mariya waanan diidnay xaqdaradana ma doonayno marka isaga diini cabdalla kaamil xaashi cabdillaahi kulli oo dee ku daadu frog ahaayo dhan waa markii dee ay gobonimadaanku 7 markii xornimada helay waa sanadkii ka dambeeyay waa lagu guray iyaga abahoodba markii la xirey yaa la soo daayay aduu xogaa sanad bay malaha ku jireen exactly ma hubeen markaas markii la soo daayay waa marka meesha ku muslimi doono markaas wuxuu yidhi baa habeen waa la eedaamay buu yidhi annagoo darro joogna markaasaan aragnay 3 baan ku ahayn buu yidhi aduu markuu soo baxay isagoo tukanayo ka soo baxay ninkii marxisiiskii xabsiga doraad isagoo tukanay soo baxay markaas wuxuu yidhi markii hore uu yaqaanay diinta iska yaqaan waxoogaa buu yaqaan uu akhri markii dambe wuu yimiday uu ka soo baxay uu ku bukooday markuu ku bukooday ku kaloo kii la joogay ma wari soo dacwiyay haddana odagaygiiba bukaa la soo kaxay cabdalla kaa waan ku cayr markaas la yidhaahdaa nin dhakhtar loo diray saddexdoodii ku kaloo ag joogay ayuu yidhi kana iga darane hala qaado isagiiba u dacway markaas kana iga darane qaada weligiiba dadku iska hormariya kii baa la soo qaaday jaamac baa la Jabuuti jooga dhakhtarkii baan tegey markaan arkay jaamac ayaa saa arkay lugtii baa soo jeedo sarta ka soo tag maada ku dacweeyaa ka taaniga isaga soo inankii dhakhtarkeen u diray oo Saciid la oran jiray ya ayaa ka yidhi war ma odagaygan ku diray mise ka soo qaad baan ku yidhi deesayna isaga ay ka yidhi walaashadii buu qaad kan odagayga dhannaaya la dagaalamay wasiirka ahaa ku kala tuuray kursiga ku riday maxamed xasan guuleed saaxiibkii ahaa ayaabaa yidhi dee maxaan kuu sameeyaa wax falsafad la yidhaha buu bartayoo cumar ma garan sida jeelka markii laga soo daayey uu soo dhacay ay baxsada la yidhi kii jabay waa kii ugu noqday buu ma idaa farasa la geyn lahaa baad moodi lahayd buu hadduu baxsan lahaa dadkii kale markay baxsadeen buu isagu kii jabay buu u noqday buu markaasuu nimanka ku garaacay buu ka yidhi war nin baa naga jabay kaala naxaray oo gudaha naga kuwii kale iskaga tegeen buu isagu kama tegina kii jabay buu u noqday markaasaa lagu riday buu oo la xiray marka waa ninkaas buu ninka u dacweys imankana kii kana iga darane hal qaadu yiri isagana uu sii fadhiyo horta buu yiri ma isaga horta la qaado buu yiri kan walaalkii la soo daweeyay anna marka dambe hal ay qaado marka waa ninkaas marka la soo daayay oo dambe la soo daayay wuxuu galamiya siyaasaddu galamiya may markii la soo daayay lama soo daynin ba markay ka soo baxeen wuxuu yidhi oo dacweeyay xasan guuleed wuxuu baasaboor ma siinaayo laasbaasay baa siinaya laasbaasay waa waxa warqad yar oo lagu baxo oo qaahiruun ha tago ha soo noqdo buu yidhi markuu qaahiro tago uu soo laabto dee qaahirana wanakan ka imanay uu ka soo tacabiray maaragtay markaasaan wuxuu u tegay dowladdii faransiiska ee hadda soo saartay ayuu tegey markaasuu yidhi kuwan unbaa ina garanaya buu yidhi maaragtay war ma naga days faransiiskii baan ku noqon faransiiskii baa markaa waxaa yimid ninka mitterrand la yidhaahdo haddana joogay madaxweynahaas dowladda faransiiskaa tiri maxaa tahay madaxweynihii faransiiskii baa dhowr saacadood gudahood ku soo jawaabay way yaabeen ninka wax alle wuxuu baahdaba soo siiya yidhaahdeen lacagtaa siiya warqadihiisii siiya baasaboor siiya soo kaxeeya yaa la yidhi ninkii baa ka yidhi war maxaa tahay buu ka yidhi marka annaku hiltan baan ku jirnaa oo waxaana dhigtay dowladdii masaarida ka tiri cumar halkan iska joogo jaamacaddayada ka dhig al-azhar wuxuu yidhi af carabeed ma aqaan af ingiriisina ma aqaan markaa kama dhigi karayo anigu waa faransiis baan aqaanaa buu markaa kuwii aan usoo barto un baan ka dhigaya halkii baan faransiis ka imanay saa michel meel la yidhaha baan imanay markaan imaneen tegnay waa markaa yaabaa haddana waxaa la soo diray wafti dhan baa la soo diray waftigaasi waxay u yimaadeen dowladdii faransiiska waxay yidhahdeen ninka ha nagu siinina political assignment cumar baa loo yidhi meel baan ku jirnay markaasaa la yidhi cumarow dee annagu waan arkaynaa laakiin iyagu nama arkayaan
waxaa la yidhi cumaroo nimankaa ma garanaysaa markaasuu yidhi haa waan garanayaa waa hebel waa hebel waa hebel buu yidhi waxay u socdaan ma garanaysaa markaasuu yidhi maya ma garanayo waxay yidhaahdeen buu yidhi cumar ha nagu siinin political assignment dantayada anaga xaggan anagaa xakunno faransiis dantayada ayaan kuu siinaynaa adaan kaa fadhiisan weyni oon kaa joogi kar weyni waanu kuu sheegnay imikana halkan iska fadhi waxaa doontaba annaka na weydii bay ka yidhaahdeen magaalada gal France aqalkaa doonto soo kirayso warqadahaagina annagaa ku siintay wuxuu nin kastoo faransiis xaq u leeyahay ayaad noo leedahay ayaa laga yidhi anuu markaa warqadaha faransiiskaan haystay oo hortii baan tegay ahayd oo arday baan ahayn markaas baa wuxuu yidhi waa yahay waxaa laga yidhi haddaad warqadihii faransiiska doonaysana waan ku siinaynaa wuxuu ka yidhi maanoo shalay kula dagaalamayay iyaan maantana ku odhan buu ka yidhi warqada faransiis baan ahay xaashaa lilaah buu yidhi war aniga qaxootigaygaasuun baad isiinaysaayo kaa un baan ku joogay maan ku joogi karaa mise kuma joogi karo waa kaa socdaa buu ka yidhi ma waad ku joogi kartaa buu ka yidhi maan ku shaqaysan karaa buu yidhi haa waad ku shaqaysan kartaa buu yidhi bas buu yidhi anuu waxaan warqado faransiis kaa rabo ma jirto iyo waxaan faransiis ahay waxaan ahay nin soomaaliya oo reer jabuuti aan yaad ku qoraysaa buu yidhi nin faransiisa miih nin warqado kaa doonayna miih waana shaqaysanaya macallinimadiisibu iska galay uu noogu shaqayn jiray oo markaa uu meesha ku deganaa markii dambe wuxuu tegey baadhis cilmi buu sameeyey baadhistii cilmigana wuxuu u tegey maxaa ahayd soomaaliya u tegey maxamed siyaad barre ilaahay naxariisa janna ha siiyee oo markuu horena jeclaa ayaaba iyuu u tegey oo xidhay si gacmo furan qalbi furan buu kusoo dhaweeyey markaasaa wuxuu ka yidhi cumarow de waan ka xumay wixii dhacayba bini aadan baan ahay waan qaldamay waan idin xidhxidhay been bay ii sheegeen imikana waxaad maxay ahayd rabtidba dalku waa dalkaagi wuxuu yidhi anu waxaan rabaa inaan baadhis cilmi sameeyo inaad igu gargaartiin ayaan rabaa buu ka yidhi baadhistaada cilmiga samee waa lagu daabacayaa buugaagtaada sidii buu ka yidhi dee sidii baan markaa faranse ku deganayn uu baadhistii cilmiga ku samaynayay alxamdulilahi rabbilcaalamiin oon dee ku noolayn haddii alaydma waxaad naga sugtaanba waa qaybaha dambe ee barnaamijkan oo aad uga bogan doontaan dhacdooyin cajiiba oo ku saabsan waayihii nolosha ee doctor Rabi tan iyo kulanti dambe nabadgelyo